إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena u sheekaya caruurta. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay muuqaalo ka mid ah barbaarintii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam barbaariyey saxaabiga cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhu. هيا هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. saxaabigan cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa wiilashii ayagoo yaryar uu nabiga calayhi salaatu wasalaam barbaariyey. inkastoo saxaabada dhanba uu nabiga calayhi salaatu wasalaam barbaariyey uu tarbiyey kulligood, laakiin wuxuu ka mid ahaa wiilal ayagoo yaryar uu nabiga calayhi salaatu wasalaam barbaariyey uu yaraantoodii wax badan noloshooda saameyn aada u xoogan uu ku yeeshay. saxaabigan wuxuu lahaa alqaab kala duwan. waxaa la oran jiray xabrul umma, ummadda caalimkeedii. waxaa kaloo la dhihi jiray turjumaanul qur'aan, oo maaragtay maadaama qur-aanka fasirkiisa uu aada uga caanbaxay oo saxaabadoo idil ay u wada qirsanaayeen cilmiga waasica ilaahay u siiyey fasirida qur-aanka. waxaa kaloo loo garan jiray albaxr, oo iyadana markaa loogu bixiyey cilmigiisa waasica dartii. magaciisa waa cabdullaahi ibnu cabaas ibnu cabdilmutalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf. waa nebiga in adeerkii. aabihii oo la oran jiray cabaas ibnu cabdilmutalib waa nebiga adeerkii. hooyadii waxaa la oran jiray umulfadl lubaabah bintulxaarith. waxay la dhalatay maymuuna bintulxaarith oo ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii. wadaalika qisada cabdullaahi ibnu cabaas waxaan ku arki doonaa in uu marar badan iman jiray guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu habeenada qaar jiifan jiray, maadaama habaryartiisa ay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisa. xilliga uu dhashay saxaabigan runtii wuxuu ahaa xilli aada u adag. wuxuu dhashay waagii ama waqtigii ay reer maka go-doomiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo reer bani haashimba. reer bani haashim iyagu waxaa lagu go-doomiyey maadaama ay diideen in ay nabiga calayhi salaatu wasalaam gaalada intooda kale ay u gacangeliyaan. maadaama ay diideen reer bani haashim kuwooda gaalada xataa waa la go-doomiyey. waqtigaas wuxuu ahaa waqti aada u adag oo reer maka ay go-aan ku gaareen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo reer bani haashim oo dhanba inaysan waxbana ka soo gadanin, waxbana aysan ka gadin, inaysan ka guursanin, inaysanna u guurinin ayay go-aan ku gaareen. xilligaas adag oo noloshu ay culus tahay ayuu dhashay cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhu. aabihiis oo ah cabaas ibnu cabdilmutalib radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa dadkii waqti hore islaamay laakiin aanan soo hijroonin oo hijradiisa way daahday, dib ay u dhacday. waxaana la sheegaa in xikmad ay ku jirtay oo isaga iyo rasuulka isla ogaayeen in uu isaga dib u dhaco uu maka sii joogo. saas darteed markaa fatro dheer oo muslimiinta ay madiina joogeen isaga wuxuu ku noolaa maka, isaga iyo reerkiisaba. waqti dheer ayuu joogay ilaa xilligii furashada maka la gaaray. maalmo ka hor ayuu kasoo tegay maka isagoo u socda madiine oo muhaajirna ah. wadada ay waxay ku kulmeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii oo u socda furashadii maka. waxaa la sheegaa marka umulfadl iyo ilmaheeda inay hore usii socdeen oo magaalada madiine sii aadeen. cabaasna uu soo raacay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii oo furashadii maka uu ka qayb qaatay. kadibna nebiga ayuu la soo laabtay sala allahu calayhi wasalam oo madiine ayay kusoo wada laabteen. meesha waxaan ka arkaynaa cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhu waktiga uu nebiga la joogay inuu ahaa waqti aada u yar, oo waqti aan 3 sano dhammayn, 2 sano iyo xoogaa ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam la joogay. laakiin waqtigaa yar aad ayuu uga faa'iidaystay. isagoo weliba wiil yar ah ayuu haddana aada uga sii faa'iidaystay nabiga calayhi salaatu wasalaam. majaalistii nebiga, masaajidkiisii, meeluu dadka wax ugu sheegi jiray aad ayuu u joogi jiray. qisooyin badan waxaa lagu arkayaa inuu xataa maaragtay odayaashii saxaabada raggii waaweynaa
oo nabiga la fadhiyo asagana inuu gees ka fadhin jiray, wax badan uu ka faa'iidaysan jiray. intaa kaliya kuma ekeene guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu tegi jiray, way u sahlanayd maadaama ay habaryartiis ka mid ahayd xasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam. gurigii nabiga ayuu tegi jiray, wuu seexan jiray habeenada qaar, aad buu nabiga uga sii faa'iidaysan jiray. wuxuuna ahaa maaragtay wiil baari ah oo nabiga ayuu u khidmayn jiray calayhi salaatu wasalaam. maalin maalmaha ka mida ayuu nabiga weyse u diyaariyey, biyo weyse qaad ayuu meel u dhigay. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu yimid oo biyihii arkay ayuu yidhi yaa ii diyaariyey. waxaa lagu yidhi waxaa kuu diyaariyey cabdullaahi. wuu u duceeyey marka nabiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi allaahumma faqihhu fi ddiin wacallimhu ta'wiil. wuxuu ilaahay uga baryey inuu ilaahay ka dhigo cabdullaahi mid diinta fiqhi u leh oo aqoon u leh, inuu ilaahay ka dhigo. midda kalena ilaahay inuu baro atta'wiil oo tafsiirkii macaanidii ilaahay kitaabkiisa inuu ilaahay fahansiiyo oo awood ugu yeelo. arrintaa runtii ducadaas aad bay maaragtay cabdullaahi ibnu cabaas ilaahay ugu anfacay. wuxuu kaloo ahaa maaragtay qof aad ugu dadaala inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku daysado oo nabiga wuxuu sameynaya u sameeyo, nabigana aad u qadariyo. habeenada ka mid ah ayaa wuxuu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo kacay oo weyse qaadanaya. uu arkayey nabigu u weyse qaatay, kadibna salaad ayuu u istaagay. wuxuu yidhi marka cabdullaahi ibnu cabaas waxaan sameynayaa sida uu nabiga sameeyey calayhi salaatu wasalaam. wuu soo istaagay, isagana wuu weyse qaatay, nabiga ayuu salaaddii kusoo xirtay, gadaashiisa ayuu istaagay. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u ishaaray in uu geeskiisa soo istaago, maadaamay laba qof kale yihiin. qofka markaa imaamka iyo qofka kale way isgarab istaagayaan, laakiin markay dadka badan yihiin imaamka gadaashiisa ay istaagayaan. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu u ishaaray in uu maaragtay geeskiisa soo istaago. cabdullaahi ibnu cabaas ma uunan soo istaaginoo meeshiisii ayuu iska taagnaa ilaa ay salaaddii dhammaatay. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa markii la hadlay wuxuu ku yidhi maxaa kuu diiday inaad geeskayga soo istaagto? oo weliba nabigu uu u ishaaray. wuxuu ugu jawaabay inay naftiisa siin weysay inuu nabiga geeskiisa soo istaago, oo wuxuu yidhi adiga rasuulka ilaahay baa tahay oo maaragtay munaasib iima ahan inaan geeskaaga soo istaago, oo waad igala qiimo badan tahay, waadna igala sharaf badan tahay inaan aniga geeskaaga soo istaago. nabiga marka wuxuu yidhi uu duceeyey, wuxuu yidhi allaahumma aatihi alxikma. waana duca aad u qiimo badan. qofka ilaahay subxana watacaala uu xikmad siiyo waa qof khayr badan la siiyey, sida ilaahay kitaabkiisa ku sheegay waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira. ducadaas ayaana cabdullaahi ibnu cabaas asagiina ku dhacday. intaa kaliya kuma ekeen ee nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu cabaas wax badan ayuu bari jiray, waxba u faa'iideyn jiray. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida inay israaceen, iyagoo wada socda ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam la hadlay cabdullaahi ibnu cabaas. wuxuu ku yidhi yaa ghulaam innii ucallimuka kalimaatin, waxaan ku barayaa dhowr kelimadood, dhowr arin ayaan ku barayaa. ixfad illaaha yaxfadka, ilaahay xifdi, isagana wuu ku xifdinayaa. oo sidee ilaahay ku xifdinaysaa? waxaad raacaysaa amarkiisa, oo wuxuu ku farayna waa yeelaysaa, wuxuu kaa reebana waad ka haraysaa. yaxfadka asagana wuu ku xifdinayaa oo adduun iyo aakhira wuu ku ilaalinayaa. ixfad illaaha, ilaahay xifdi, tajidhu tujaahaka, hortaadaad ka helaysaa. oo maaragtay dhibaatooyinka iyo caqabaadka aad la kulmaysid ilaahay subxaana watacaala ayaa kugu macaynayo oo kuu gargaarayo, maadaama aad ahayd qof marka hore alla subxana watacaala u hoggaansamay. tacaraf ila allaahi fi rakhaa yacrifuka fi shidda, ilaahay subxaana watacaala noqo qof ku xiran wakhtiga ay barwaaqada jirto oona dhib iyo culays waxba jirin. noqo qof ilaahay garanaya. tacaraf ila allaahi fi rakhaa yacrifuka fi shidda, adigana wakhtiga diiqa iyo dhibka iyo rafaadka uu ku qabsado alla subxaana watacaala ayaa markaa macayn iyo gurmad iyo gaalamo kuu noqonayo subxaanahu caza wajal. laakiin lama rabo qofka markuu dhib qabsada keliya inuu ilaahay u cararo, laakiin marka kale inuu ilaahay ku xirnayn oo iska mashquulsan yahay oo haafil yahay, taa lama rabo. idaa sa'alta fas'al illaah, haddii aad qof wax weydiisanayso ilaahay wax weydiiso. waida istacanta fastacin billaah,
haddii aad qof kaalmo weydiisanaysa ama kaalmaysanaysid alla subxaana watacaala kaalmayso, isaga ayaa kugu filan inaad kaalmaysato maaragta. waclam ana alummata low ijtamacat cala an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak. waxaad ogaataa haddii ummaddo idil ay isku tagto iyadoo doonaysa inay adiga wax ku tarto, inaysan waxba ku tari karin ilaa wax uu alla subxaana watacaala kuu qoray mooyaane. sidoo kale wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayk. haddii ay kulligood isku tagaan oo ay rabaan in adiga dhib kuu geystaan, ma kuu geysan karaan wax aan alla subxaana watacaala kuu qorin. ruficat alaqlaamu wajafat isuxuf. walidaalika wax alla wixii aqdaarah oo qofka intuu nool yahay ku dhici lahaa, wanaag iyo dhib waxay noqdaanba, ama maaragta nafci iyo dura waxay noqdaanba, ilaahay subxaana watacaala ayaa hore u qoray oo waa maaragta agtiisa ku xifdisan yihiin. walidaalika waxuu qofku ka baqo ama ka walwalo adduunkan ma jiro, keliya waa inuu alla subxana watacaala ku xirnaado uu isaga maaragta amarkiisa ka dambeeyo. cabdullaahi ibnu cabaas aad ayuu warkaa u weeleynayey, kuna dadaalay inuu ku dhaqmo oo maaragtay maxay ahayd sida uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu dardaarmay inuu isagana anagana noogu soo gudbiyey inaan ka faa'iidaysano. halkaa ayay sheekadan noogu eg tahay. sheekadan waxaan ka faa'iidaysanaynaa ahamiyadda ay leedahay in caruurta lagu barbaariyo qiyamta sareysa ee islaamka yaraantooda, iyadoo habab kala duwan iyo qaabab kala duwan la isticmaalayo. waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa in ay muhiim tahay in caruurta la siiyo ihtimaam, oo waalidka waqtigiisa wax badan ka mid a uu siiyo, la noolaado oo ay wax badan sidaas wada noolaanshahaas ay wada nool yihiin ay ka faa'iidaystaan. waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa in ay aada munaasib u tahay in dadka saalixiinta ee wanaagsan ama culummada maaragtay qiimaha leh in maaragtay ilmihii loo geeyo oo waqtiga munaasib ah ama munaasabaad macquula haddii loo helo in loo geeyo inay fiican tahay ama lala kulansiiyo. waxaa dhici karta inay ka faa'iidaystaan talooyin, waxaa dhici karta inay ka faa'iidaystaan ugu yaraan inay ka helaan duco uu maaragtay caalimkii ama mashaayikhii ama qofkii saalixa ahaa oo ilmihii u duceeyo, oo taa ay barako wanaagsan ay ku helaan. mahadsanidin, la socda sheekooyinka soo socda. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.